هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا السلام يا دمانتين أصحاب تقييمها بدن إن سلجوجنو إن فيديو كدوبينو وحامشني لجوجا مولود شريف عبد الله oo nabadoonka ashraafta xasan iyo xuseen magaalada wadanka Jubbaland oo haddana ku sugan magaalada Kismaayo iyo walaalkay Daawud Shariif Cabdiraxmaan oo ka imaaday wadanka Mareykanka haddana aan wada joogno magaalada Kismaayo marka iyaga ayaa ku soo dhaweynaya marka koobaad waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Daawud Shariif Cabdiraxmaan kadibna waxaan u sii gudbin doonaa nabadoonka ashraafta si uu ashraafteena reer Shariif Maquul ama Aal Xuseen uu ula wadaago wuxuga dhiirigelin ah oo ku saabsan dhinaca horumarka reerka iyo wuxuu qabadkiisa Shariif ku soo dhaw. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد جيره شريف عبد الله وادنا حسن تاهي واندوه يانيغا داوود شريف عبد الرحمن عاوة كسوغان مغالدة كسمايو مع goboleedka Jubbaland la joogo nabadoonkeenii beesha reer Shariif nabadoon Shariif Mawlud Sheekh Cabdullaahi waad mahadsantihiin sidaad ii soo dhaweyseen aad ii ikraamteen runtii martaba aan lahayn aad ii gaarsiiseen waan kaga mahad celinayaa sida sharafta oo muxuu ahaay ugaasku uu qaabilay oo manzilkiisa agtiisa uu ii fariisiyay waan dhawahay aniga gidigin waan idin mahad celinayaa insha Allah ta'ala aniga berri waan sii laaban doon haddii Ilaahay raado marka Shariifkan ku soo dhaweyn insha Allah ta'ala wixii haddaan nahay qurba joog beesha reer Shariif uu nugula dardaarmi lahaa wixii fikradiisa insha Allah ta'ala iyo wixii kelimad uu nadhihi lahaa Shariif ku soo dhawo kelimada jazakallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhalinyarada beesha ashraafeed ee hadda halkan ku sugan oo ugu horeeya walaalkay Sheekh Daawud Shariif Cabdiraxmaan oo naga soo ziyaartay dhinaca cariga Mareykanka iyo dhalinyarada kale hadda codkooda duubaysaba waad mahadsantihiin run ahaantii waan ku faraxsanahay Daawud imaashiisa iyo inuu soo booqdo magaalada Kismaayo inuu soo gaaro booqasho muddo adiga dhowr maalmood qaadatay haddana aan filayo inay maaragtay gabagabo tahay siduu Shariifku u sheegay safarkiiba hadda uu bilaaban doono waxaa weeye walaalayaal marka koowaad alla ka cabsi baan isu dardaarmaynaa reerka beesha Maquul meel kasta oo joogaan kelimada koowaad ee rabo halkan inay idinka soo jeediyo waa alla ka cabsi iyada ayaan adduunya aakhirada ku liibaanaynaa tan labaad ee rabo waxaa weeye waagin iyo yani maaragtay in innaga ka reer ahaan reer Maquul iyo guud ahaan ashraafta waxaa xaqiiqo ah in yani maaragtay aan ka liidano xagga horumarka aakhiro kama hadlaya adduunyadan yani maaragtay dhismihii iyo shaqo abuurkii waxaad moodaa qurba joogteena inay aad ugu liitaan marka koowaad waxaan hadda waxaan dhex fadhinaa hotel la yidhaahdo Maamuus Garden oo ku yaala magaalada Kismaayo waxaa sameeyay oo yani maaragtay hotelka maalgashada dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbahaas ka soo laabatay run ahaantii lacagta iyo shaqo abuurka taalo maanta aniga laftaydu waxaan ka rabaa shaqo oo dhalinyaro shaqo la'aan ahaa iga soo codsatay inaan dadka meesha maamulo shaqada uga raadiyo waxaa weeye shaqadii maanta waxay noqotay nin walba meeshiisa iyo qabiilkiisa bay noqotay waxaan la'nahay hal shariif ama 10 shariif ama 100 shariif oo isu tagtay oo intay ku soo noqoto waddanka
maalgelin sidan oo kale samaysa dhalinyartii iska taagtaagneed qaarkii wax soo bartay xisaabaha iyo waxaas ku fiicnaa, qaarkii maamulka ku fiicnaa, qaarkii xoogga iyo xamaalashada ku fiicnaa, u abuuro shaqo maalmaha. walaalayaal maanta waa adduun, berrin waa aakhiro. waxaynu isugunahay adduunkan inaynu isgarab qabanno oo fikradaha isku darsanno, cududda maaliyadeed iyo tan maskaxeedba aan midayno, taasaan meel ku gaari karno. waxaan aada u jeclaan lahaa inaad kaliibkayga markuu idin soo gaaro dib la isugu noqdo, la soo fikiro. anuu xoolaad haysaan oo magaalo idinka buuxa malihi, laakiin dadka Soomaaliyeed ee baxay baad ka mid tihiin ee qurbaha tegey. idinku bal gacmaha isqabsada. marka koowaad walaalnimada iyo ehelnimada isugu qabsada gamcaha, islaamnimada iyo ashraafnimada aalbeynimada isugu qabsada. kadibna waxaan aada ugu hanweynahay oon aada u rajeynaya haddii ay midnimo iyo muwaafaqo dhacdo in wax badan aad qaban kartaan. war cududda maaliyadeed hala mideeyo, maskaxda hala mideeyo, oo waddanka meel kasta oo sileedahay waxbaa kaa soo geli kara. hala maalgashto. maalgashashada waxaa weeye way fara badan. hadda hoteeladan aan fadhino kala ka mid a. dowladdan xataa annagu waxaan idinka caawinaynaa kolba wixii looga baahdo oo shuruuc iyo nidaam looga baahdo meesha garab baan idinka siinay. laakiin in la soo noqdo oo waddankii la maalgashto oo Maraykanka weligiisa iyo Maraykan keliya ma ahe meel kasta oo qurbo oo la joogo waan ogsoonahay dhibaatada ku haysata dadka soo noqonaya. waxay u soo noqonayaan waxa weeye dhibaatada ay meesha ku arkeen laga soo cararayo. sidaa ay tahay haddana waan ogsoonahay duruufaha dadkii idinka dambeeyey oo idinku soo tacalluqa oo maalin kasta telefoonka la saaran yahay. walaalayaal, midnimada iyo wadajirka iyo wax wada qabsiga lagu dadaalo. ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo, cimriga iyo caafimaadka iyo maalkaba allah idin barakeeyo. waan idin ducaynaynaa walaalayaal. hala isu soo fikiro oo dad soo fikiro oo dadkii u maqan noqdo insha allahu tacaala. ilaahayna guul iyo midnimo ha idin siiyo dhammaanteena. waad mahadsantihiin. codkaygu hadduu hooseeyo xoogaa waad ka raalli ahaanaysaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. آدي بعض ما سنتين فرينتي أما كلكي ولا لهن قرب جوجتها يكون جود جوجتها لو دريي أو كسب سنة وعي جلين يا وحوض قبسي تعصل الرواء ضد كسو كوريا يكون واحد جوجا إني وحقبض النقطة وإن لو ذا جيين ولكن مولد شريف عبد الله أهنا نودونك ashraafta Alu Xuseen iyo Xasan magaalada Kismaayo, gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland cafwan, iyo walaalkeen Daawud Shariif Cabdiraxmaan oo inaga soo booqday dhinaca iyo Mareykanka safar shaqana ku imaaday. haddana waqtigan uu gabagabay yahay socodkiisii ama joogitaankiisii. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dhiirigelinta iyo fariinta aad u gudbiseen walaalaheena kale, iyadoo ogsoonahay cid waliba inay fiican tahay inay wax isku wada qabsadaan dadku meel kasta oo ay joogaan. aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa walaalaheena. waxaan leenahay taladaas wanaagsan ee qiimaha badan waa mid ina faran inaan wada qaadanno, waa mid wax inoo qabanaysa innaga iyo jiilka dambe ee soo kori doona. aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa fursadda fiican aad na siiseen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.